tiramisu tiramisu muxuu ka kooban yahay tiramisu waa luqad talyaaniga ee waxa uu ka kooban yahay ukun waa ujeedaan waxa kale oo ka kooban yahay biscuitka loo yaqaan nooca la yiraahdo lady fingers nooca dhaadheer ukunta cad iyo ukunta guduud oo la kala saaray waxa kale oo ka kooban yahay cheese-ka nooca loo yaqaan mascarpone cheese waxa kale oo ka kooban yahay in yar oo coffee waxa kale oo ka kooban yahay sugar waxa kale oo variation-ka anaga maadaama muslimiin aan nahay khamri kuma darsan karno laakiin gaalada badanaa waxay ku darsadaan 2 qaado ilaa iyo 3 qaado oo brandy khamriga loo yaqaano ayay ku darsadaan noocaas ayay ku darsadaan 3 qaado ayay ku darsadaan marka anaga muslimaan nahay dhinacaas oo dhan waa goyna faraan ka qaadnay ukuntii waa kala saaray waxaan u kala saaray egg whites iyo egg yolks egg whiteski ayaan soo qaaday si fiican baan u garaacay kadibna waxaan soo qaatay egg yolkski waxa aan ku daray sokor si fiican baan u garaacay ilaa sokorta ay u dhex gasho ay isku si fiican u qasmaan sokortii iyo waxaan soo qasay ukuntii maaragtay yolkskeedii jaalaha ahayd hadda waxaan ku darayaa mascarpone cheese mascarpone waa aragtaan mascarpone cheese iyo ukuntii gaduudneed ayaan isku qasay kadibna 2 qaado oo vanilla ah ayaan ku daray ukuntii cadeed ama egg whiteski ayaan waxa aan ku fool gareeyay oo aan ku daray mascarpone cheese iyo ukuntii gaduudneed si aayare ayaan kula qasaya ukuntii waa isku qastay iyo mascarpone cheese waxaan geliyay frinjeerka ay ku jiraan haddana waxaan soo binayaa halkan waxa u jeedaan hal bakeeri iyo bar oo coffee ah كوفيغا وهل بكيري بر كوفي قبوب ayaan waxaan ku daray 3 qaad 4 qaad biyo camad ayaan ku daray si uu noqdo light wax kale kuma jiraan waxaan soo qaadayaa lady fingers waa ujeedaan waa lady fingerski oo ahaa biscuitkii waan qooyay waxaan ku qooyay kofeegi baan ka soo dhex saaray waxa aan ku riday weel aluminium si qurxoon ayar ayaan u dhigay kadibna waxaan dusha kaga daray mascarpone cheese aan hore u soo qastay ayaan ku daray kadibna waxa aan soo qaatay biscuit kale aan qooyay dusha ayaan ka saaray haddana waxaan soo qaatay mascarpone cheese ayaan dusha ka mariyay haddana layerka saddexaad oo kale biscuitkii ayaan haddana dusha ka saaray haddana waxaan saaray another layer kale oo mascarpone cheese kadibna waxaan u dambeysiyay oo aan ku gareeyay chocolate nooca semi sweet-ka ah si uu u siiyo qurux iyo udgoon wanaagsan hada in tiramisu-ga wuu dhan yahay layerka ugu hooseeya waxa weeye waa in biscuitka loo yaqaan lady fingers waxaan ku xijiyay mascarpone cheese ukuntii cadeed ukuntii gaduudneed sokortii vanillihii wixii dhan isku qasay ayaan ku xijiyay kadib waxaan ku sii xijiyay another layer kale ayaan ku sii xijiyay kadibna waxaan ugu sii dambeysiyay another layer kale oo maxaa la yiraahdaa oo biscuitkii iyo another layer kale oo maaragtay mascarpone cheese-ki almost dhowr layer ayaan haysanaa kadib maxaan soo biyay waxaan soo qaatay nooca loo yaqaan Hershey idin tusay chocolate Hershey loo yaqaano waa ku gareeyay saas ayaan ku soo baxay tiramisu-gii waa dhameeyay frinjeerka ayaan ka soo saaray kadibna waxa aan ku riday sixni ayaan ku shubay waa ka waa u jeedan qaadada ayaan hadda gelinayaa waan dhiminayaa aad iyo aad buu u macaan yahay inta aan ku kulmi doono barnaamijkan barnaamij la mid ah aad iyo aad baa u mahadsantihiin